marka sharafina inta marka jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidii horey loo hambaliyay ayaa waxaan hambaliyay munaasabadan quruxda badan oo lagu daafurayo kitaabka quruxda badan lagu daafurayo waa waqtiga aniga ma geeban waqti ma dheereynayo marka ugu horeysa waxaan hambaliyaynayaa mu'allifka kitaabka ayaan u hambaliyaynayaa sheekh hada sheekh Saciid ayaan u hambaliyaynayaa waxaan uga mahadcelinayaa juhdiga quruxda badan oo wanaagga badan oo ummadiisa u soo gudbiyay dadaalkaas ayaan ugu mahadcelinayaa dadka ummadeena oo qora wax qorida uga badna badanaa wax qorida kuma badna marka ninkii naga mida oo wax qora majaal kasta oo wax ka qoro waa ku mahadsan yahay waana la soo dhaweynaynaa in wax la qorana aad loogu baahan yahay intaas kadib أنا أرد تاريخ المتخصص كويه طبعا وحنا مرينا يا كأقوياء هنحن بالغيقاتي مرقد أصحاب التاريخ كنت تخصصتي ماشي جوه وكميديا القراها وكميديا النمى اللي يقولوا لي الدكتور محمد داب وكميديا هاي تعدى واحد يجيبيه مركا هاي تلقاتين هذا وتري الله يوعي قابل وعدودان أفرفر أما أفرفر أهو
ama adkaysi dambadii wey waa afeef wey macnaha iyo hadday jiraan dad kale oo ku takhasusay cilmiga isaga kitaabkan aniga markaan fiiriyey intii uu ilaahay iga karsiiyey waxaan ku arkay marka ugu horeysa mualifka kitaabka sameeyey sheekh aadan wuxuu sameeyey waxaan arki jiray kitaabada la qoro caadiyan waxaan arki jiray horudhac yar oo mawduuca markaa laga hadlay oo khaaska oo qofku ka hadlay ayuu muqadamo yar ka samayn jiray qofka kitaabka leh ama qofkii kale oo u wakiisho laakiin ustaadka wuxuu ku mahadsan yahay uu sameeyey muqadamo ku saabsan cilmigaas ballaaran ee taariikhda uu ka hadlayo muqadamo ama horudhac ku saabsan ayuu sameeyeyba intuuna gaarin mawduucii koobnaa ee uu doortay inuu ka hadlo oo ahaa taariikh al-isticmaar fi Soomaal ahaa intuuna gaarinba muqadamo fiican oo ka horeysa oo cilmu taariikh ka hadlaysa ayuu sameeyey muqadamada uu sameeyey cilmu taariikh ka hadlaysa waxaa ka mid ah ahmiyatu cilmu taariikh ayuu ka hadlay ahmiyatu cilmu taariikh cilmiga taariikhda ahmiyaddu leeyahay ayuu ka hadlay oo horudhaca aan sheegi kaga hadlay wuxuu kaga hadlay fawaa'id cilmu taariikh ayuu kaga hadlay oo dabcan faa'iidooyin badan ayuu meeshaas ku qoray ahmiyaddii taariikhda ayuu ka sheekeeyey sidoo kale wuxuu qoray uu ka hadlay fawaa'id cilmu taariikh ayuu ka hadlay oo iyaduna si fiican uga hadlay sifaatul mu'arrikh ayuu ka hadlay sidoo kale wuxuu ka hadlay mawduucu taariikhdu waxay ka hadasho ayuu ka hadlay uu si fiican uga hadlay oo zamanka iyo insaanka iyo wixii lamida ayuu sidoo kale ka hadlay kadib wuxuu ka hadlay oo muqadamada ka mid a gaayada ama yoolka ay taariikhdu leedahay iyo meeshay u socoto ayuu ka hadlay oo cibro iyo wuquuf in lagu cibro qaatiyo wixii lasoo maray in la dul istaago si looga faa'iidaysto oo kuwa jooga ay markaa wixii hore iyagoo ka shidaal qaadanaya ama ka qiyaas qaadanaya ay arrimahooda markaa taagan hagaajiyaan macnaha wixii isku soo maray markaad dib u fiiriso waad ka cibro qaadanaysaa markaasaa waxay kuu noqonaysaa duruus markaasaad xaaladaada hadda taagan ayaad hagaajinaysaa intaa kadib wuxuu u gudbay mu'alifku ahdaaf daraasati taariikh ayuu u gudbay iyadana ahdaafta taariikhda loo daraaseeyo ayuu meeshaas kaga sheekeeyey qoraagu khayr allaha siiyey marka horta muqadamadaas oo cilmu taariikh ku saabsan oo mawduuciisii ka weyn oo cilmigaa ballaaran ku saabsan buu sameeyey oona badanaa horey u arki jirin dadka wax qora mawduucooda wax ku saabsan unbay horey ka geli jireen macnaha mawduuca khaaskay ka hadlayaan ayay horey ka geli jireen kadib qoraagu wuxuu galay buuggiisa caadiguu galay fasalladii caadiga ahaa fasalka ugu horeeya khalfiyaad taariikh oo juqraafiyeed bilaad Soomaal ayuu ka hadlay fasalkaas si ballaaran buu uga hadlay aad ugu faahfaahiyey si fiican oo qurux badan ayuu uga hadlay ninkii raba in uu bilaad Soomaal barto taariikhdeeda iyo juqraafiyadeeda si fiican ayuu meeshaas uga hadlay oo si guud oo haddana fidsan ballaaran ayuu uga hadlay khayr allaha siiyey fasalka isaga ah waxaa aniga aada inkastoona boqolkiiba boqol dhex gelin haddana waxaa si gaara ii soo jiitay oo si gaara usii fiiriyey macnaha aan aada ugu farxay mabxadka afraad uu badanaa kaga hadlay usuul islaam ila Soomaal oo intishaar uu kaga hadlay mabxadkaas wuxuu si fiican ugu balbalaariyey sida islaamka Soomaaliya uu kusoo gaaray iyo sida ugu faafay ayuu si fiican u faahfaahiyey si fiican u dhexgalay baan ka wadaa macnaha wuxuu soo jiitay aad u dhexgalay kitaabada taariikhda arki jiray inkastoona horey u sheegay inaanan taariikh mutakhassis ku ahayn laakiin si kooban bay uga heli jireen isaga si fiican oo waxoogaa ballaaran uga hadlay ilaa aaraa'dii oo dhan buu soo bandhigay aaraa baa jirtay oo ah sida uu kusoo galay islaamka Soomaaliya aaraa'dii dhan buu soo bandhigay mid buu dul istaagay si fiican oo meeshaas u bayaanay isla fasalkaas markii hore meel baan wax ku arkay laakiin markii dambe waan iska waa daawooday masalan
maraakiz shacair alislaam ayuu mualifka soo qaatay. marka laba markis bes uu xusay oo ah Zaylac iyo Muqdisho. marka anoo hoosta kale mualifku baa dheerihii uu lahaa aagihii agteeda ku dhashay laftigeeda ayuuna sheegin waa maxaa noole ayuu haddana ciwaanka waa gadaal ugu soo laabtay. waxaan arkay marka inuu adeegsaday ereyga ahamu inuu adeegsaday ayaan arkay. marka waan qancay, meeshaas waan ka qancay oo ahamudii marka inuu labadii ugu waaweyneed sheegay waan ku qancay, waan kaaftoomay. aada u mahadsan yahay. fasalka labaad al-isticmaal al-Awrobi wuu kaga hadlay. fasalka markaa meeshaas wax yar haddaan dhaho kusii dheeraan maayo. erey isticmaal annaga waxaan u naqanaa gumaysi. luqa ahaan ayuu uga hadlay mualifku fiican yahay. marka erey isticmaal gumaysi ma aha. macnihiisu waxaa weeye waa erey la rabay waddanka in lagu soo galo oo beer jilecsi lagu raadinayay. marka luqadda kii camirayay dhulka wey, kii camirayay dhulka ee hagaajinayay iyagana sameeyey isticmaalka. waxayna u sameeyeen inay dadka kusoo dhex galaan oy niyad iyo qalb iyo soo dhaweyn inay ka raadiyaan. waana macnihiisa saas weeye. laakiin isticmaalka rasmiga ah waa ixtilaal. marka mualifkuna saas uga hadlay. laakiin waxaan rabaa oon dadka dhalinyarada ah inaan ku baraarujiyo oon dhaho kelmado badan oo gumaystuhu sameeyey oo loogu talagalay in dadka lagu soo dhex galo. arrimahaas uu waxyaaba fiican ka sheegaya waa meeshaas laga fahmay. oo kifaaxii ama halgankii ama lagu xoreeyayo waddanka oo gumaysti lagu sheego aada u fiican tahay. hadday yihiin dad is-abaabulin, hadday yihiin qabaa'il, hadday yihiin ayuu ka sheegay waxyaabaha oo waxyaabaha guud mooye. labada buug ee u qoray ustaad aadam sheekh saciid waa munaasabad waxa la xaadiro ama waxa la yimaado waxyaabaha ugu wanaagsan. runtii wax badan aniga kitaabka kama sheegayo, waa liiga horreey waana liiga dambeyn doona. laakiin qodobo dhowr aan rabaa inaan ka dhawaajiyo. marka koowaad waxay tahay inkastoo ay igu horeyso macnaha u malaynaya inaan maanta toos isu qaabilnay ama aan foolka fool ustaad aadam. haddana waxaa weeye qofka markuu wax qoro wuxuu qoraa safiir oo meel kasta joogo. kitaabkiisii hore ee imaaratu baardheer waxaa laga yaabaa markii dhalinyarada yaryar ama dad badan oo waaweynba inaysan maqlin baa laga yaabaa wax la yidhaahdo imaaro ama boqortooyo shareecada islaamka lagu dhaqi jiray oo laga sameeyey baardheer. kitaabkaasaan arkay. marka aada iyo aad waxaan ugu bogaadinayaa ustaadka qalinkaas uu qaatay iyo shaqadaas wanaagsan uu qabtay. mawduucan uu ka hadlay mawduuca isticmaalkana waa mawduuc ballaaran, waa mawduuc aada u weyn. markaan annaga wax qorayno kolley waxa ugu muhiimsanee la rabo waxaa weeye reer galbeedka wax badan ka qoray gumaysi. iyaga gumaysi uma yaqaanaan, isticmaal waa camirid. wax in la camiray iyaga ka soo qaadeen. yani dhulkii ay tageen Latin America ama America oo dhanba iyo Africa iyo qaybaha Asia ay tageen waxay u haysteen iyaga ama ay u bixiyeen camirid iyo inay ilbaxnimo geynayeen iyaga. marka ereyga halkaasuu ka yimid. ereyga Soomaaliga turjumadiisa annaga ereygii saxda ahaa ama sidoo ahaa ayaan u turjumnay markii lagu magacaabay gumaysi. waxaan ognahay adduunyada waxay martay isbedello waaweyn ayaa adduunyada dhacay. isbedeladaas waaweyn islaamka soo bixistiisa iyo in imbaraadoriyad dowlad weyn oo islaam la dhisay waxay ahayd taariikhda bini aadamka wax weyn. muslimiinta inay xaqiijiyeen guulo waaweyn oo maaragtay dowla cusmaaniya xilligeedii, dowla cabaasiya, dowla cusmaaniya. arrin waxay ahayd muhiim, isbedel weyn oo adduunyada dhacay. tataarkii kusoo duulay muslimiinta qarnigii 13aad ee caasimadii qabsaday ee lagu qiyaasay 2 milyan oo qof in ay yani muslim iyo gaalba ka dileen. dad waxay ahaayeen aada macnaha u qalabsan.
wuxuu ahaa xilli weyn isbeddel weyn adduunyada u dhacay qarnigii 14aad 15aad Yurub isbeddel weyn ka dhacay oo kacdoonno fara badan oo keenay in ay nolosha waxweyn iska beddelaan marka gumaysiga wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii ka dhashay isbeddelkii weynaa ee Yurub ka dhacay dadkaas Yurub marka hore qaarada ku yaraatay dagaalo badan bay galeen yani reer Yurub waxyaabihii dadka ugu horeeyaan waxaa koobka inay yihiin ummadda dhibaatada ugu badan martay marka ummadda badan la shiilay in badan la dhalaaliyay dagaaladii sida dhulka xiriiri ku noqday beeraley ahayn aad isu gumaystay marka qaraxii ka dhashay dhibaatooyinkaas farad badan ayaa dhalaaliyay oo keenay in ay adduunyada kale inay aadaan oo ay gumaystaan iyo in kacdoon cilmi uu ka samayso marka waxaa loo baahday waxay u baahdeen qaaradii markay ka gudbeen ay ka tageen warshadaha iyo waxaan samaysteen oo xoolaha ay heleen waxay u baahdeen laba shay muhiim warshadahoodan meeshii looga keeni lahaa wixii macdanta ceyrinka ay gelin lahaa shayda dharka samaynaysa suuf meeshii looga heli lahaa suufna waa in beer weyn oo beerada waa in lahaa marka waxay noqotay in lagu tartamay adduunyada in walba sida hadda waad aragteen xamar meelaha dowladda in dadka ay boobaan soomaalna arkin waa ma aragtay dhulka aad loo jecel yahay oo dhul aan laga dhargeynin marka waxay noqotay adduunyadii siday u cabiran lahaayeen midda labaadna wixii laga soo saari lahaa warshadii oo farada badan warshadii waxay samaynaysaa wax ka badan Yurub baahideeda waxaa loo baahday suuq la geeyo oo loo iibgeeyo marka si loo helo maado ceyrine iyo suuq labadaas ayaa adduunyada marka la boobay dhulkii adduunyada dhan la boobay marka marxaladaas annaga wixii naga soo gaaray waad ogtihiin arrintan qaybinta kuma dheeraanayo marka mawduucan wax laga qoro waliba annaga aragtideedna aan u aragno ma aha aragtida Yurub iyo sida ay annaga wax naga soo gaaray annaga sida aan u aragno dadkeennii halganka galay taariikhdoodii wixii keenay inay halganka keenaan inay halgamaan waxaasoo dhan waa arrin muhiim waxaa jira dad qof kasta wax qorayo Soomaaliya waxaa haysta dhibaato weyn wax dhiirigelin iyo hay-ada garab taagan iyo lacag iyo ma jirto min taas waxay keenaysaa qofka inuu marka isxilqaamo asaga oo uu culays isa saaro kharashkii inuu alifo kitaabkii oo fikirkiisa ururiyo inuu isagii daabacdo inuu isagii suuq geeyo yani waxaa loogu talagalay hay-ada kale iyo dad kale inay qabtaan ayuu qabanaya marka haddaan la dhiirigelinin qofkii marka intaa soo maray haddaan la dhiirigelinin oo kitaabkii aan la akhrinin oo xogtii aan laga faa'iidin oo aan la gadanin buuggii waxaa weeye hadde waa inta dadaalaysa ay sii niyajabinaysaa dad baa waxay u haystaan qoraalka in lacag laga sameeyo lacag lagama samayn karo annaga soo aragnay waa inaad fisbillah iyo niyeysatay in cilmigan uu faafo waxaana aad u ogaanay qofka qiimaha wax qorista markuu u baahdo xog ama saxaaf ha noqdo ama qof master sameeya cilmi baaris ha noqdo markaad u baahato shaygii xog dhab aad weydo markaad hesho hal kitaab marka waxaa ogaanaysaa qofkan qiimaha uu maaragtay iyo juhdiga uu sameeyey intay leegtahay suuqa shacabkeena shacab akhriya ma aha caadada dhaqanka in wax la akhriyo ma laha kharash iyo lacag ma haysto waa shacab faqiir oo maaragtay miisaaniyada uguma jirto inay buwaabka ku gataan sida adduunyada kale taas waxay keenaysaa marka inay yaraato suuqa kutubta guud ahaan waxaan rabaa waqtiga aad u yar waxaan rabaa in aan muujiyo ahamiyadda ay leedahay taariikhda iyo in wax la qoro waa arrin muhiim wax dadka taariikhda qoro ma aha dad farsamo yaqaano ma aha dadka maaragtay cilmiga dhakhtarka iyo combyuutar iyo IT iyo waa dad raba inay farsamo bartaan ay wax ku helaan ninka taariikhda iyo culumta bini aadamka baranayo waa nin raba inuu wax kusoo kordhiyo dadka saas daraadeed waa dadka mu'arikhiinta waa dad mufakiriin oo cabaaqire inta badan waa dadka dunyada u iftiimiya kunka sano soo socda 2000 soo socda ummadaha dadka waa sahantagayaasha marka dadkaas waxaa la rabaa in la ogaado marka dhalinyaradana waa in laga helo weliba dadka maaragtay sabarka leh dadka hamiga weyn leh dadka xoolo tacab aan aad niyadooda ugu weynayn waa in laga dhex helo dad taariikhda barta si ay u sii socoto markale waxaan bogaadinayaa munaasabadan waxaana u rajaynayaa walaalkay sheekh aadam inuu sii wado waxaan u rajaynayaa mustaqbal fiican iyo in wax weyn walaaladiisa ka bedelaan ummadda iyo inuu sii wado dadkan annagana waxaa nasaaran inaan dhiirigelino mar kale mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wax waligeed noo jiraysa dhalinyaradiin hadda joogta waxaa laga rabaa marka odayaashii hore hadday isticmaalkii iyo taariikhdiisii inoo qoqonayaan hadda waxaa la iska rabaa intii digaad usoo joogteen 30 sano ee isbursiga ee Soomaaliyeed ay Soomaaliya isbursanaysa qof walba meel ayuu kaga soo aaday intii aan usoo joogno qof walba hadduu wax ka qoro asoo hataa marjic kale u baahan inta adiga ku soo martay inta isbedel ah ayaa wax weyn ummadda u noqonaysa dadka dambeeya wixii hadda dhacay haddii loo qorana maalin waxaa imaan doontaa ay dhihi doonaan dadkan waxaana dhib ayaa soo maray oo dadku markii waxaana dhib samaynayeen ama lagu samaynayay xaggee jireen oo dadka dambe ay noqon doonto taariikh ay ka faa'iidaystaan oo aysan marin dhibkii innaga aan marnay maxaa yeelay qofka kaa horeeya hadduu khatar galo oo meel ku dhaco waxaa rabaa meesha inaad adna kaga daba dhicin ka joogsato taariikhduna waxay la mid tahay yidhahdaa waa iftiin hortaada yaala oo jidka ku iftiiminaya oo meeshii xumaan iyo dhibaato iyo rafaad ay soo mareen dadkii hore intay kuu sheegto ayaadan maraynin ood ka leexanaysaa meeshii horumar iyo ay ku gaareenna waaba lagu sheegay horumarkaas ayaad qaadanaysaa waa maalinta iyo habeenka oo kale saas afmaymay hadda waxaa kaloo yidhahdaa qofka habeenkii ku hor socda iyo qofka maalintii ku hor socda inay kala duwan yihiin macnaa waxaa leeyahay hordareer hamiineed hindhoogaaw hordareer geena hungurigoykaaw qofka habeenkii ku hor socda indha ayuu kuu yahay oo god hadduu ku dhaco alla god buu ku dhacay waad ka leexanay ilaa wax maaragtay asaa indha kuu eg laakiin ka maalintii ku hor socda wixii aad heli lahayd asaga hortaa helaya uu ka horsii qaadanaya marka hungurigoykawkaas ninkii maalintii oo hor dareer marka aad mahadsantihiin jidka waa lagiin iftiimiyey hasiiru calaa barakatillah jidkaa ku soo socda jidka tacliinta iyo waxbarashada iyo qoraalka iyo cilmiga iyo niqaashka saas marka qorayaal sidan oo kale insha allahu tacala inaan isugu imaano way fiicnaan lahayd hadda bandhig bug ayaan soo bandhignay marka dambena inaan mustaqbalka soo bandhigno bandhig afkaareed iyo yani afkaarta jirta iyo dhalinyarada waxyaabaha ay danaynayaan iyo waxa ay tahay inay ka wada hadlaan si wixii sax ah oo ummadda anfacaya inay u wada qaataan wixii ka khaldan oo ummadda dhib ku ahna ay isla wadaayaan ummadeennu waa ummad wixii dhibaato way u jeedaan laakiin marka qaarkood way qarsadaan oo aad banaanka uma soo dhigaan ummadaha kale waxay nooga roon yihiin wixii jiro oo dhanaa banaanka la isu soo dhigaa waa laga doodaa ayadoo aan la isdilaynin oo la wada hadlaayo yaa qof walba afkaartuu aaminsan intuu soo bandhigo ayaa qofkii xataa uu nafisaaya oo qofkii xataa haddaan la caburinin oo waxa uu sheeganayo uu sheegto hadday khalad tahay xataa dadku intay dhegaystaan ayay bis marka dambe markii loo sheegay meeluu ka khaldan yahay marka uu sheegtay oo uu nafisay waxaa laga yaabaa in wax iska bedelo oo marka dambe uu dadka caadiga ka mid noqdo laakiin haddaan waxba la isu sheegin oo la wada hadlin oo la iscaburiyo oo qofba qof kale uu ka shakiyo saasay tahay soomaalida waxay ku mahmaadaa wixii aad qarsataba wuu ku qarsadaa marka aynan waxba qarsanin mustaqbalkayna ka fikirno dhalinyaradan sidii afkaar intii sidaa oo kale loo qabtay nadawaad dadku midana xataa arra'yi warra'yi aakhar waxaa la yidhaahdo dadka ra'yi duwan oo kale intii loo keeno in la doodo oo la niqaasho oo wax la isweydiiyo oo dhalinyarada isu dhegaystaan kadibna meeshii fiican isku raacaan waddankan wuxuu u socdaa dhalinyarada inay hogaamiyaanoo waa doorashooyin iyo waxaa la isku muransan yahay see loo dooran laakiin ugu dambaysta waxay ku dambayn doontaa inay dadku ayagu ay doortaan hogaamiyaashooda oo la codeeyo maalinkii la gaaro qof walba codkiisa inuu dhiibto oo qofku doortana markaas waxaa soo bixi lahaa yaa dadka u fiican yaa horumarinaya laakiin inta hadda la isku kor fadhiyo oo maxay idin qof buusan qof ogolaynoo sida wax lagu tagaayaba dhalinyarada aysan dowr ku lahaynoo aan waxba laga weydiinayn jugjug meeshaadi joog waayo marka hala dadaalo afkaarta hala busleeyo marka dambena doorasho xor ah oo dadku ay waxooda soo bandhigtaanoo afkaar war ani saasaan aaminsanahay yaa ila qaatay intii la dhaho intii la qaadatay u codeeyaan in kalena si kale u codeeyaan ugu dambaysana natiijada meesha dadku ay u bataan lagu hogaamiyo sanadka dambe markay ka dhammaatana sidaasi lamid oo kale haddii si wixii uu noqdana sida Erdogan oo kale dhowr iyo 10 sano maalin oo hor usii socdo haddii la kasi waayo 4 sano ugu horeyso hal mar hadduu nasiro oo si kale loo dhigana mar dambe inuusan soo noqonin haween naga leexo beenaad noo sheegtay si umaleynima ah dadku marka ay noqdaan war dhalinyarada inay ilaaliyo dantooda haddii ku jirta marka bisaylkaas ayaa rabaa in la soo diyaariyo waana waxa kulamadan oo kale loo abaabulay tahay eedeeda mahadsantiin siin salaabe wasalaamu calaykum waxaan aada u salaamayaa sharaf iyo mahad iyo bogaadin weyn aan u hayaa dhalinyaradii soo abaabushay xafladan jamaalka iyo quruxda badan oo halkaan isugu kaan keenay saas oo kale marti sharaftii soo ajiibtay oo ay ka mid yihiin barofesorada oo gacantay bidix jiraan fadhiyaan allaha dhowro insha allahu taala cilmigoona allah inoo barakeeyo mar labaad dhalinyaradan
وجهه قروح بدن yahay oo hortay fadhiya ilaahay waxaan ugu baryayaa mustaqbal zaahir ah hada qurux badan cimri dheer iyo cilmi naafic amal saalix insha Allah taala macalinka sidiisaba ardaydiisii waxyaabaha inuu dhaafo oo ugu tago oo qiimo badan waxay tahay in markii isla joogaan uu baro cilmi iyo akhlaaq iyo aadaab markay kala tagaan uu soo duceeyo in ilaahay bogaadiyo oo barbaariyo oo wanaajiyo oo guuleeyo intaas kadib insha Allah taala mar kale waxaan aad ugu faraxsanahay aan aad ugu shukrinayaa bacda shukrillahi subhanahu wa ta'ala in xaflad noocan ah saan u qiimo badan akhyaar iyo professor iyo arday iyo noocaas ay ka soo qayb in xamar lagu qabto oo markii ugu horreysay waaye insha Allah taala magaaladayna Allah inoo barakeeyo intaas kadib jamaaca buugan imanka aan u fadhino buugan waxaan fikirkiisii igu dhashay 2000 taqriiban laakiin 2007 markii villa Soomaaliya يعني أي تجين عدمي تبين حلقي محمد حلقي مدعي Soomaaliya عبد الله يوسف أحمد أدبر ومر جودي حقيقة أنه يسكن أفريقيا ومرها تجد ولا لكن ظروف فربضني قاو فربض برون ولا أنا وحن سوى عقلي السنة إلى Soomaaliya جرته يعني عن Soomaaliya جمهورية Soomaaliya بيجري جمهوريتنا الحر أي تاي شيكلو أي تاي سير الله على Soomaali قلبي NFT markii dambe waxaa dhacday waa sida roqooyga ay dhahaan waa adagii shan Soomaali sheegi jiray shaxdaada meelayda markii 88 la garaacay yani Hargeysa ayaa jarada waxay ku ciyaareen waa adagii shan Soomaali sheegi jiray shaxdaada yaray yani intii Soomaaliland aaw markii taas dhacday 2008 aan bilaabay laakiin waa iskaga aamusay mar dambe ayaan hadda Ilaahay noo soo tageliyay inaan dhamaystirno buugan waxaa ka horreeyay buug aan qoray oo sida ustaadkii sheegay oo ka horreeyay taariikhda gumeysiga oo imaaradii Baardheere al-imaara al-islaamiya fi madiinati Baardheere Baardheere oo waxa weeyaan magaalooyinka ujeedooyin badan ay asaasmaan Baardheere waxaa loo asaasay ujeedo diineed waxaan la asaasay 1776 isla sanadkaas ayaa dhalatay dowladda Mareykanka maanta jirta marka aqraab diiniya meel duur bay ahayd sheekhu wuxuu iska tagay meel cidla marka kadib yani taariikhdan gumeysiga adoonsiga sida ustaad sheegay waa isticmaalku waa kalimaadka la inoo xariba kamid Almaaniya isticmaali waxa uu fiican in la dhaho waa ixtilaal ama isticbaal adoons marka buugan gunaad wuxuu ka hadlayaa taariikhdaasi gumeysiga insha Allah idinka akhrisanayaan wax badan kama dhahayo ملاحظات يوم بان تلماميا ممكن سخاصة وعن حب قصاري تاريخ الكونفورت الصومالية أو أحبنا على غورين مثلا شيخ الإرادة شيخ عبده إيكر عثمان طول إيشان سنو دقالني قافلي بالي جريوانيك هيركان بيمالي هذا طبعا البلاد ويسولي جرين لكن هيركان سو قامين هي لا مشكلة Sheekh Xasan Barsane oo wuxuu soo maray loo yahay xabsigan ku dhintay wax weyn laga soo qaaday asbaab loo sameeyay ma aqaan sababta taariikhda koonfurta loo dafiray oo loo qariyay qisiyada hadaan sheego in ala daraasa ay jiray ciidamada Soomaalida ka tirsanaa ayaa beri 40 sano ciidan ku jiray isbitaal u dhaafi waayay sababta dhaafi waxay tahay waa in tababaro uu ahaa توبرنا وها دكتور وها لكن أفهمه دكوا عايج ما حيتنبضن وها مرقوا عروضنا أفحات وكذا بيجري أفماي ودكوا عايج لكن قاعد سوا حوالي بدي مدولتي وحيد هذه أرجع وفرصة جيستي هلا يفصل الأسكتين مرة لكن الآن الشقالة تعاطى بوا أفكاس وين من شقالة إيوه هو الكلام هذا الصمت كلام معي مرتين واحدة رئيسي وحلمها رسول قريو الليلي السركال يعني تكدك على سيليري البوليس كان وحتى ليها Soomaali كان برجع سنين يراد عادم وكان مركين تنبه
berri markay xafladdu ay dhici doonto maanta waxaa la yidhi soo diyaariya geesaaji dalka la soo qoro ninkaas wadadu qaatay wuxuu yidhi sayidna cabdilla xasan axmed guri ina libaa xasan ka taabta wiil waa aad buu u carooday warqaduu soo qoray wuxuu yidhi geedi shaambow dubka baalow fayla arab nasiibun waxaasuu soo qoray uu keenay sarkaalka wuxuu ku yidhi aniga waxaan maxay geesaaji dalku weyn markaasaa yidhi geesaad waa leeyahay kuwan maxaa soo qortay adigaa u taqaanaa wuri ani waxaan u aqaanaa wuri sayidna cabdilla xasan axmed guri in laga xasan ka taabto wiilwaal ina fahmi ina faadiila waxaasuu diray markaas wuxuu yidhi anta aada sheegteedan gaalkay koofara ku jirana koofar gooda ka hadlimaysa inta hadda aad sheegtay geeslaka u taqaana magaalada gaalkay waqooyi bay ka xigaan marka koonfur halkan baa ka socda iyo iyada ka halgamaysa markaas inta hanti u ka marka oday labadi waa la dejiyey marka dimaago waa la kiciyey wadaan buu maray aadan buqay baa laga yiri ninkan asiga ay waxay soo bari marka qisada bay ahayd marka hadda su-aashaas ay taagan maanta haween geesayaasha koonfurta ah maxaa loo sheegi waay marka qadiyada meesha jirta waxay tahay in aan dadka koonfurta wax ma qoran nin kasta waxaweye wixii markii u muuqday marka waxaweye khalda laga beheyd saacaddan laga bilaabo soomaalidu dad kooban oo walaala waaye marka insha allahu tabaraka wataala bukan waxaa kaloo aan kaga hadalnay gebagebarka badan ma hayo masaawil isticmaal xumaanta u dhaafay isticmaalkaas aad baan uga hadlayada waxyaabaha kale culimadaaba sheegtay laakiin waxaan haba sikeri aan ku daray warku waa ka baxay waxyaabaha dhacday waxaa ka mid ah bani aadan xitaa asxaabu rasuulillahi berigood bani aadan meel wada degan oo xumaan aan ka dhacaynin mala laakiin xumaanta in la sharciyeeyo waxyaabaha taariga sameeye meesha sameeye waxaa ka mid ah in dumarka shata ama ruksad la siiyo jirka inta ganacsada la yidhaahdo calan loo suro dad gaari qaata la yidhahdo maamul loo dhiso cabdullahi waa ila xasuustaa sheekha islaantii madaxa ka ahayd magaalada muqdisho ee magaalada xamud baydhabo magac bayleed ma sheegaayo marka waxaas inkastoo maxamed siyaad wax badan ka baabi'iyey laakiin beriga cabdirashiid iyo wixii ka sarreeyey macruuf bay ahayd magaalooyinka soomaalida qaar ka mid a marka waxaa dhacday dhaqanka soomaalidu dhalinyaro iska ciyaarta khaladaad waa dhici jiray wax kas bay samayn jireen laakiin waxaaba ka fajacay waxyaabaha taaniga sameeyey gumaysiga sameeyey xagga dacaarada iyo zinada iyo faaxishadaasi ah waxaa ka carooday oo la yaabay aadaalunaas waxay dadka ugu liitay ugu ciyaaro suuqsanaa ugu qamarjisana ugu liitay ayaa markay arkeen waxaan magaalooyinka ka socda xaafadan iska dhisan dumar diyaar waa calankoodu taagan yahay feel loo galay yani aan la qarsanaynin wixii aad ba uga carooday marka nin baa la yaabay mar dambe nin kale saaxiibkiisa xudur ka yimid waa u yimid marka wuxuu ogaaday ase hore u yaabay mogtahay ninkan saaxiibkiisa hadda yimid xer ka gaarsiisan yahay yaabka isaga nin u ogaado markaas su-aal weydiy wuxuu gabi baa isweydiin u yidhi ariirow hooy aday udurku koytay hanraabti meelu rogday hiimay ka haysateen hidiwtan xeebtuntaa lamaa bahayne hidiw walada qadal hidiwtan xeebtuntaa lamaa bahayne hamiinkasi hataa walow adaa xudur ka yimide dumarkii meesha joogay maxaa idinka dhexeeya markaasuu leeya hidiw waxaan iska dabadabanaya xeebtan taalamaba ahayn laakiin habeen marmar marka xishoodka iyo akhlaaqda iyo diin la-aanta dadka la gaarsan insha allah guudan waxaan dardaarmaya wixii aadaar gumaysiga ka tagay kulligood waa dulli insha allah laga tago
Soomaalidu waa dad walaalo ah meel kasta ay joogto in walaaltinimada gaar ahaan facga hadda walaaltinimada lagu dadaalo caali yar baa nahay madaxweynaha Shiinaha waxa uu hogaamiyay dad ka badan 1500 milyan anagana waxa lagu hormaa 12 markii insha Allah walaaltinimada iyo ehelnimada la xoojiyo ilbaxnimada iyo reer magaalnimada iyo islaamnimada isma diidayaan inaan iswaafajiyo tadayinka iyo diinimada lagu dadaalo aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazakumullahu khayr